Inkasta oo isbahaysiga Britain iyo Italy oo wadajira ay ku guuldaraysteen inay joojiyaan hubka oo Sayid Maxamed helayo, haddana Britain waxay bilowday inay habab kale raadiso. Habkaas oo ay ugu magacdartay baaritaanka doomaha laga shakisan yahay ee badaha sare maraya. Waxayna bilaabeen hab ay uga codsanayaan Suldaanka Cumaan in Ingiriisku baaro doomaha ay ka babanayaan calanka Cumaan ee badaha sare maraya, kuwaas oo looga shakisan yahay inay hub iyo rasaasba u wadaan xeebaha Soomaaliya hadday noqoto Italian Protectorate ama British Protectorate. Dowladda Britain-ku waxa ay ka dhaadhicisay Suldaanka Cumaan inuu soo saaro ogeysiis la xiriira hubka sharci darrada ah ee loo dhoofinayo xeebaha Afrika iyo jasiiradaha ay ku jirto Socotra oo ku taalla waqooyiga Cape Gardafu oo hoos tagta maxmiyadda Britishka, una amar ku bixiyo in la qabto doomaha maraya biyaha Cumaan ee sida hubka iyo rasaasta. Inkasta oo Britishku uu sameeyey wixii farxad gelinayay hadday noqoto dhulka iyo baddaba, weli waxay u baahnaayeen in waddamo kale ay ku sii lug yeeshaan dagaalka ay kula jiraan daraawiishta. Maamulka Britishku waxay weydiisteen Suldaanka Cumaan sida ay isaga kaashan lahaayeen Cumaan iyo Britishku in la joojiyo la baaro doomaha u sharaacanaya dhanka Soomaaliya, iyo sidoo kale in laga hortago ganacsatada Soomaalida ee xiriirka ganacsi wanaagsan la leh Cumaaniyiinta in badeecooyinka ay u sii qaadayaan waddankooda Soomaaliya ay raaciyaan hubka iyo qalabka dagaalka. Haddii uu diido Suldaankuna fulinta codsigan, uu ka dhexli karo cawaaqib xumo dhanka Britain kaga imaada isaga. Kadib, Suldaanku wuxuu soo saaray ogeysiiskii lagu amray, isagoo leh dhammaan dadka ay qusayso waxa la ogeysiinayaa isfaham ay soo saareen dowladaha Britain iyo Italy in la soo safriyo hubka iyo qalabka dagaalka, in laga mamnuucay xeebaha Afrika iyo jasiiradaha ay ka mid tahay Socotra oo ku taalla waqooyiga Ras Casayr oo hoos tagta maxmiyadda Ingiriiska, iyo qaybaha maxmiyadda Talyaaniga gebi ahaanba in la mamnuucay. Hal la ogaado doon kasta oo hub u safrinaysa goobaha kor ku xusan in lala wareegi doono, waxaana amar buuxa siiyey ciidanka Britishka ayagoo amar buuxa iga haysta. Waxaa intaasi dheeraada oo aan amar buuxa siiyey ciidanka Talyaaniga inay baaritaan ku sameeyaan doomaha maraya biyaha Cumaan. Waxa ogeysiiskan Suldaanku soo saaray lagu aasteeyey Maskat 24 Rajab 1321 ama 17 Oktoobar 1903, waxaana ku saxiixnaa Faysal bin Turki oo ahaa Suldaankii Maskat. Maamulka gumaysiga Ingiriisku markii uu isku dayay dadaal kasta oo diblomaasiyadeed waa ay ku adkaatay inuu xakameeyo qulqulka hubka ee uu sayidku helayay. Intaas kadib, Britishku waxay isku dayeen inay isticmaalaan xeerka The General Act of the Brussels Convention 1889 iyo 1890 ama xeerka xakamaynta hubka heshiiska Brussels ee 1889 iyo 1890 in la joojiyo lana baaro dhammaan maraakiibta u socota xeebaha Soomaaliya, kuwaasoo looga shakisan yahay inay hub u safrinayaan ciidamada Sayid Maxamed Cabdilla Xasan. Xogayaha taliyaha ciidamada badda Sir Ivan Macgregor ayaa warqad confidential ah oo loo dhigay sida soo socota u diray madaxdii ka sarreysay mid ka mid a, isagoo raadinaya hab sharci ah oo loo maro arrintan. Waxaana ay ku beegnayd 13 Oktoobar 1903. Wuxuu leeyahay, way wanaagsanaan lahayd in aad hor dhigto sharciyaqaanada sida ugu dhaqsiyaha badan si ay fikri uga soo dhiibtaan. Tallaabooyinkii aan hirgelinay ee ahaa xakamaynta hubka ee Somaliland, ujeedkii laga lahaa nooma suuragelin weli. Saraakiisha amarka siinaysa maraakiibta maraysa badweynta India waxay haystaan amara inay baaraan doomaha ay ka babanayaan calanka Britishka ama kuwa ajnabigaba ee maraya badaha. Qodobka 5 iyo firqadii saxa ama qodobada kale ee General Act of the Brussels Convention ee 1889 iyo 1890 ma lagu dabaqi karaa arrinkan? Hadday jawaabtu maya tahay, tallaabooyin ceenkee ah ayay mas'uuliyiintu qaadi karaan? Haddaba siyaasadan ah in doomaha la baaro, darwiishkii ugu horreeyey ee galaafatay wuxuu ahaa Ciise Dholowa,
oo doon hub u siday daraawiishta ciidamada Ingiriisku ay isbaara ama jidgooyo ugu dhigteen badda dhexdeeda. Ingiriisku waxa uu la wareegay doontii hubka ahayd ee Ciise Dhowlawaa uu waday, wuxuuna xabsiga dhigay darwiishkii oo loo taxaabay xabsi aad u durugsan. Xogtan waxaan ka soo xigannay The Scramble in the Horn of Africa, History of Somalia ee ku beegan dhigaalka 1827 1977.